hooyo Soomaaliyeed haddaan nahay inaan nala eeysaan inaan nala barardiiqdaan inaan noo gurmataan wixii waxgarada ilmada muddo hal sano ayay ka maqan yihiin dhalinyaradii ay dhaleen waalidiintan kuwaas oo hore loogu sheegay in tababar loogu qaadayo dalka Eritrea waxaana waalidiintan iyo helada dhalinyaradaasi ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan ogeyn halka ay ku sugan yihiin iyo xaaladda ay ku nool yihiin dhalinyaradii ay dhaleen waalidiintan ayaa sheegay inay ka war heleen in dhalinyaradii lagu tababarayay dalka Eritrea ee ciidamada federaalka qaybta ka noqon lahaa in dagaalkii Itoobiya iyo Tigreega ay gelisay dawladda Eritrea oo tababar ka siinaysa ciidamadaasi isla markaana tiro kamid ah halkaas ku dhinteen mudaharaad kooban oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waalidiinta iyo ehelada dhalinyarada maqan waxay ku muujiyeen sida ay uga xun yihiin ka war la'aanta ubadkoodii kuwaas oo ay ku eedeeyeen dawladda federaalka inay uga faa'iideysato arrimaha siyaasadeed ee ka jira Geeska Afrika waa kuwan qaar kamid ah waalidiinta iyo ehelada dhalinyarada maqan oo la hadlay warbaahinta waxaan ka codsanay waa la gatay ilmaha waa la gatay waxaan ka codsanaa qorqor abdi qabdiid waxaan ka codsanaa haddana wiilasheena dhimasho iyo nolol aan ku keenin waxaan awoodeynaa inaysan mawaadin aan ahayn inaan hooyo Soomaaliyeed aan ahayn inaan galmudug aan ka mid ahayn madaxweynaha waxaan ka codsanaa walaalayaal loo gudmayo farmaajo ilmaha wiilsay inuu gatay inuu mawaadin Soomaaliyeed ahayn inuu madaxweyne Soomaaliyeed ahayn inuu tuuguliyo nala sodray igu shabeena hana ka ridaha oo askar loo qortay oo ilmo yar saqiirada oo 14 jira oo lana ka qaatay oo leeyid waxayna taliya lagu tuuray oo la gatay oo madaxweynuhu qaatay oo yiri sabaqan ula baxay ninkaas waa baabeen baa la yiri waa dhinteen baa la yiri waxba kama noolaa la yiri waxaan doonaynaa inaan ka soo samarsiiyo teesuu soo wacay oo uu leeyahay isbitaal aan ku jiro waa dhibaataysanahay risaas iyo dhibaato iyo waxba ma haysta aniga dawladda Soomaaliya iyo dawladda Galmudug waxa ka codsanaya walaalkay inay noo keenaan ilmo badan baa maqan walaalkay kaliya ma maqan dawladda Galmudug waxa ka codsanaya madaxweyne qoorqoor walaalkay inay keenaan aniga walaalkay wiiga maqan intaas sanadii wax raaci maqan aniga walaalkay inay keenaan raba dawladda Galmudug waxa ka codsanaya walaalkay inay keenaan afaraad saacooyin ku jirnaa waxa la sheegay wiilasheena in Altaria la geeyay dagaalka Itoobiya Tigreega la geliyay waxa la sheegay in baalkii buuraha laga daadiyay marka waxaan asarayna hooyo Galmudug oo Soomaaliyeed baa nahay ilmaheena haday dhinteena geeridu waa xaq inay raajicuun in nala soo baalka haday dhinteena madiyaad taxsiideena nala soo tiirayeen haday dhinteena ka samra haday meel yihiin sida ugu dhaxsiyaa badan waxa ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya madaxweynaha farmaajo gatay walkii sheeg waxaan ka codsanaa madaxweynaha Soomaaliya inuu wiilasheena hadii dhinteena noo soo sheego haday meel yihiin ilmaheeni oo nalaga watay muddo adiga 9 bilood ka hor ayagoo naloo sheegay in la laayay ayagoo naloo sheegay in Itoobiya raaca hore la geeyay ayagoo difaac ay ka dhigatay dawladda Itoobiya waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya oo markaas afraad oo banaanbaxeena uu gaarayo asoo ka soo jawaabin waxaan ka codsanaynaa cuqaasha ilmowdiinka waxgaradka indheer garadka waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ilmaheena in ay jawaab ka bixiyaan ilaa shalay waxa soo xoogaysta wararka sheegaya in dawladda Eritrea ay gelisay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee ku tababaraysa dalkeeda dagaalkii u dhaxeeyay Tigreega iyo dawladda Itoobiya kaas oo la sheegay in dawladda Eritrea ay garab weyn ku siisay Itoobiya qabashada gobolkaasi waxaana ilaa hadda aan ka hadleen arrimahaasi madaxda dawladda federaalka oo lahaa mas'uuliyadda tababarka loogu qaaday dalka Eritrea dhalinyaradan Soomaaliyeed saabaq sicin CDA TV Gaalkacyo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom